guddi hoosaadka dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka ee golaha wakiilada Somaliland ay waxay saaka u yeedheen gudoomiyaha banka dhexe ee Somaliland oo uu heliyo agaasimaha banka dhexe. Haddaba kulan kooban oo saacado kooban qaatay oo ay warbaahintu dibadjoog ka ahaayeen markii uu soo dhamaaday waxa warfidiyeenka uga warbixiyay gudoomiyaha guddi hoosaadka dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka ee golaha wakiilada Somaliland Xildhibaan Saciid Maxamed Cilmi Siraadle. isla markaasina waxa warbaahinta u sheegay waxyaabaha ay ka wada hadleen gudoomiyaha banka dhexe. intaasi kadib Ali Ibrahim Jaamac Baghdadi gudoomiyaha banka dhexe ee Somaliland ayaa waxa uu ka waramay kulankaasi iyo waxyaabaha lagu xog wareystay oo ay kamid ahaayeen hantida maguurtada ee banka dhexe uu leeyahay iyo goobaha ay ku kala taalo. sidoo kale gudoomiyaha banka dhexe ayaa waxa uu bulshada reer Somaliland ugu bishaareeyay in sicirka rasmiga ah ee wax lagu kala iibsan doono suuqyada Somaliland uu yahay ka ay banka dhexe ku soo diraan telefoonada gacanta isla markaasina kaasi uu yahay ka rasmiga ah. gudoomiyaha banka dhexe oo arintaasi ka hadlay hadaladiisii waxa kamid ahaa maanta oo taariikhdu tahay 16 August waxaanu joognaa golaha wakiilada waxaanu kulan la qaadanay guddiga dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka marka waxa weeyaan kulan joogto ah oo sanad walba mar dhaca ama laba jeer marka waxaan uga warranay xaaladda banka uu maanta marayo hantidiisa maguurtada ah meelaha ay ka kala dhisan yihiin iyo qiimahooda barnaamijka banka uu ku socdo oo ku saabsan xagga muxuu ahaa kobcinta dhaqaalaha aad iyo aad baanu isu wareysanay su'aalihii ayna wadiin oo dhan waanu uga jawaabnay iyagoo qudhudana xog waran kale ayayna siiyeen marka insha Allah waxaan filayaa inaan wada shaqeyn wanaagsan aanu yeelan doono guddiga dabagalka hantida qaranka waxa kale oo aan bulshada Somaliland ugu bishaareynaya guddigana aan maanta u sheegnay in laga bilaabo bishan 12keedii August sicirka uu banku soo saaraa ee maalin lahaay uu yahay ka rasmiga ah ee lagu wada shaqeyn doono dhammaan Somaliland dawlad shacab sariflayaal ganacsato marka sicirkii mobilka aanu ku soo diri jiray message-ka uu dhaxan jiray sicirka suuqa iyo sicirka mobilka imika mobilka message-kan uu ku soo diraa rasmi noqonaya sidaan waxaan ku heshiinay ururka wadajir ee sariflayaasha iyo baanka waaweyn ee saameynta ku leh dhaqaalaha oo aan ka wada socono subaxii walba intaana sicirka soo saarin aanu isku waafaqno marka sicirkaas baa noqonaya kii muxuu ahaa rasmiga ah ee waddanka ku shaqeynayay waana guul uu banku soo gaaray oo ilaa iyo 94 intii bank la sameeyay markii ugu horeysay Central Bank uu sicirka soo saaro aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa saxaafadda iyo xildhibaanada iyo dhammaan saraakiishii la socotay banka. Assalaamu calaykum. Axmed Cabdi 5TV Hargeysa.